على الفيوبانت هذا عقدة إيا النعيب إيا عيل إيا النحل إيا النعيب شينيو هذا ولالك مسلم كأقبن والنبت قليظة أقفي عني قلبي أجي علوش هذا قشة ويان ما أنت waxaad arkaysaa dad iska neceb qof iska neceb war muxuu ku yeelay qofkaas dhiigaaga iyo dhaqankaaga wax ma u geystay maya waan iska neceb warniyow Soomaalida arag qof la iska naco way iska nacay maxaad ku nacday ama qabyaalad buu ku nacaya iyo qabiil ama wuxuu ku nacaya xasad waxa sidayo see u noolaan karaa sidee sharafta u yeelan karaa sidee caynka u noqon karaa buu ka xasidaya أما قبيالات بكون عيا أما وحكلوا بلاء كان بكون عيا هنتاسي سلامة الصدر الله فيوبان رسولك عليه الصلاة والسلام صباح يسوى مساجد كيسي فرديا ننقروا وينو ويسيستيو قركو ويسدا بيوه كدب عيان باسوق علي مركز يرورنين كان موجودان ساسا الله وضعيك الصحابة دا وأهل الجنة صبحي لباد بو الباب كاللفتي سي كسوق علي isagoo intuu weysaystay garkiisi biyo ka dhibcayaan gacantana kabihi ku sita ninka ma aragtaan ahlu janna weey sidoo kale subaxii saddexaad nin saxaabada kamid ah Abdullah ibn Amr ibn al-Aas la yiraahdaa wuxuu yiri walla waa inaan ogaadaa ninkaasi wuxuu waxa ku mutaystay habeena dhowra ayuu yiri xaafadii baanu siyara seegnaye aan habeena kula joogo saddex habeen buu aqalka la seexdo isagoo u kuur gelaya oo u dhabagelaya cibaadadiisa bal ninkan jannadu marxaatiga rasuulka uga kacay sallallahu alayhi wasallam habeenkii saddexaad wuxuu warniyo wax mushkilada ma jirtee arrintaasaan maqlo rasuulku saddex cisho isxiga uu sidaa yiri maxaad ku mutaysatay wax kale anigu garan maayo buur waadi aragtay wax amalo siyaadoon sameynaya miyaad aragtay may laakiin laba qodob baan leeyahay weligay habeen ma seexan qof muslima anigoo caloosha cuqdad iyo cadaawad ugu haya weligay habeen ma seexan anoo qof muslima calooshayda cudur iyo cuqdad iyo cadaawad ugu haya midda labaad qof muslima wax uu ilaahay siiyay oo nicmo ah weligay ugama xumaannin inaan ku farxo mooyaane